جيما ريكتا بودي بيلدر واسك صعدا cuntooyinkii ma garanayo sax ma ku ah gabaraha hay xaajiga cunto karinaya cuntada u baahan yahay oo saxda caafimaadka ma garanayo sax ma aha cunto caafimaad leh oo balanced oo dhameystiran oo recovery muscle recovery ku siinaysa oo yaani awood ah u yeelanaysid in maalintan dabaxata aadan dareemin wax baahaya maxay tahay cuntooyinka ayaga waa muhiim marka hadii gabaraha tahayna inaad garanayso cuntooyinkan ayaga ah si xaajiga ugu diyaarsid asagana wuxuu ku siinayaa vitamins kala duwan oo runaantii jirkaaga aad ugu baahan yahay ee tahay maskaxdaada ee tahay jirkaaga ee tahay murqahaaga assalaamu calaykum asxaabta qaaliga soo dhawaada waa mar kale iyo coach Aabi waxaan ku jirnaa bishii barakaysneed waxaan ku jirnaa yani la talintii yani caafimaadka xagga fitnesska xagga dietka nutritionka iyo qaybaha kala duwan waxaan maanta ka hadlaynaa yani cuntooyinka ugu wanaagsan ee lagu afuro hadda koor baan diyaarshay oo ka hadlay laakiin hadda waxay soo gaartay cabasho gooriya yani step by step cuntada intee ka bilaabaya intee maxaan ku xujinayaa maxaan ugu dambaysiinayaa cunto caafimaad leh oo balanced oo dhameystiran oo recovery muscle recovery ku siinaysa oo yani awood ah u yeelanaysid in maalintan dabaxata aadan dareemin wax baahaya waayo muhiimadu waa afurka haddii afurka seeg uu ka galo then waxa kale ay ka halaabayaan hadda marka maxay tahay cuntooyinka saxda ah ee lagu afuro ee ku siinaya all the vitamins oo ma taqaanaa jirkaaga ugu baahan yahay haday tahay protein haday tahay carbs haday tahay vitamins and minerals haday tahay fats maxay tahay cuntooyinka ayaga waa muhiim marka haddii gabaraha tahayna inaad garanayso cuntooyinkan ayaga ah si xaajiga ugu diyaarsid haddii aad tahay body builder dhisa murqihiisana waa muhiim in cuntooyinka aan garanaysid haddii yani aadan xaaslin ku karisana inaad adigu karsanaysid macna waan dareemi karaa ama aad tagaysid maqaayad waa muhiim choice-kaagu inuu yahay mid saxan oo runaantii aad ogtahay faa'iidooyinku keenayo resultigiisa aad fahamsan tahay laakiin iska soco jima dhigta body builder waa iska socda cuntooyinkii ma garanayo sax ma ku ah yani gabaraha hay xaajiga cunto karinaya cuntada u baahan yahay oo saxda caafimaadka ma garanayo sax ma aha hadaba waxaan kula talinayaa marka in mar walba ka fiirsato cuntooyinka cunaysid waxaad isweydiinaysaa marka maxay yihiin cuntooyinka muhiimka ah oo jirkayga u baahan yahay oo muqassab ay tahay muqaddas ay tahay inaad hesho xilliga afurka cuntooyinkan ku sheegi doono dadka qaar way awoodaan dadka qaarna ma awoodaan waxa marka fiisigan uu ku saabsan yahay dadka awooda isla markaana mar walba jecel inay helaan cunto yani nafaqaysan oo jirkoodana u baahan yahay cuntooyinka kale waan ka hadli doonaa haddii aad ku xiran tahay page-kayga laakiin cuntadaani waa muhiim in aad note ka qaadato isla markaan aad galabtay ama sibiritoole aad u diyaariso xaajigaada si yani aad u aragto resultiga aan ku sheegay awalan markaan furayno waxaan runaantii dhaqan u leenahay inaan ku afurno timir iyo biyo yani waxaa ku jirta faa'iidooyin aad tiro badan waana qasab inaad hesho xilliga afurka waayo timirtu waxay ku siinaysaa sonkor dabiici ay ku siinaysaa energy degdeg ay ku siinaysaa halka biyahana ay ku siinayaan yani fuuqbaxa jirkaaga ay soo celinayaan soo marka labadooda isla falgalaya markiiba jirkaaga wuxuu helayaa nafis dan waxaa ku xojinaysaa maraqa qaybihiisa kala duwan haday tahay maraqa qudaarta haday tahay maraqa digaaga haday tahay maraqa ariga ama waxaa ku xoji kartaa yani mushaaridan oo caanaha lagu daray haddii inta kale aadan heli karin then markii inta aad hesho kadib waxaa marka ayr u xojinaysaa haddana miraha qaybahooda kala duwan sida bariiska brownka bariiska caadiga ah iyo sidoo kale yani saraynta kale yani digirta kale ama sidoo kale rootiga saraynta laga sameeyay maraqiisana aasdaasna ugu isticmaalaysid waxay ku siinaysaa yani carbohydrate fiber iyo energy ruuxantii wanaagsan ayay ku siinayaan dan waxaa ku xojinaysaa proteins oo proteinka qaybisi kala duwan sida hilibka lo'da hilibka ariga hilibka geela ama waxaad heli kartaa yani chickenka iyo sidoo kale malaayga waxay ku siinayaan protein ruuxantii wanaagsan oo aad ruuxantii jirkaaga ugu baahan yahay haddii inta aad heli karinna waxaad isticmaalaysaa protein shake oo ruuxantii ku siinaya yani proteinka aad u baahan tahay haddii inta kale markaas ay diyaar aysan ku ahayn dan waxaa ku xojinaysaa qudaarta qaybaheeda kala duwan qudaarta aad ay jirkeena muhiim ugu tahay waayo waxay ku siinaysaa vitamins kala duwan minerals oo kale iyo sidoo kale fiber waana asaasi yani meelo badan waxaa jirkaaga ka mid ah oo ruuxantii u baahan inay helaan qudaarta qaybaheeda kala duwan soo muhiimay kuu tahay in qudaarta aad jirkaaga ruuxantii aad geliso oo aad cunto isticmaashid yani si joogtaana aad u isticmaashid waayo muhiim ay u tahay jirkaaga sidoo kale waxaad ku xojinaysaa fatska qaybihiisa kala duwan fats markaan ka hadlayo
faadku mid waxaa jira cudura mid waxaa jira caafimaad faadkan ka hadlay wuxuu yahay afakaadhada caanaha iyo mooska oo la isku shiiday sida saytuun iyo sidoo kale olive oil oo lagu kariyo cuntooyinka qaybada kala duwan that's the real fat oo runtii caafimaad leh oo jirkaagana oo u baahan yahay wuxuuna runtii u fiican yahay hormoonka qaybihiisa kala duwan waana muhiim inuu ku jiro faatka caafimaadka qaba dietkaaga sidoo kale fruitka sidoo kale isku soo xojinaysaa oo ugu dambaysiinaysaa cuntooyinka cunaysid waayo asagana wuxuu ku siinayaa yacni vitamins kala duwan oo runtii jirkaaga aad ugu baahan yahay ay tahay maskaxdaada ay tahay jirkaaga ay tahay murqahaaga yacni aad u baahan tahay so waxaan kula talinayaa in ayaga aad isticmaashid waxaan filaa inaad fahantay runtii waxyaalaha aan qudan leeyahay iyo muhiimadda ay leedahay cunto balansida oo dhammaystiran jirkaagana mar walba aad si qaas u fiirido waxa aad gelinayso waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka faa'iideen videogan please like noo saar videogan oo la share garay asxaabtaada page-kana ku soo follow garay si aad la socoto muuqaal noocan oo kale ah mar kale iyo ku jacab